kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan idinkugu talagalay waa barnaamijkeena habeennimo khamiisa oo jimca ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 7 May 2026 qodobo muhiim ah ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa waxaynu ku bilaabaynaa war goordhow ka soo baxay xarunta qaramada midoobay golaha ammaanka magaalada New York ayaa sheegaya in Mareykanka iyo qaar ka mid ah dawladaha Carabtu ay wadaan qaraar ka dhan ah Iran. Haddaba maxay ku haystaan Iran oo qaraarkan u yahay? Haddaba qaraarkan waxaa looga soo horjeedaa qaabka ay Iran maraakiibta kula dhaqmayso Hormuz, miinooyinka ay gelinayso meesha, waxa meesha ka socda. dawladahan waxay leeyihiin marinbiyoodkan waa marinbiyood caalami ah. Iran iska malaha annaga dhan khaliijka hadaan nahay iyo Iran dhexdeedu mara Iran isla haysiinaysa waa qalad. marka Mareykanka soo horkacaya golaha ammaanka in la keeno rabaa oo Iran marka cunaqabatayno cusub golaha ammaanka inuu saaro. haddana waxyaabaha la yaab kale taqriirka ama warbixinta ku qoran waxay tahay waxay ku leeyihiin waxaan u digaynaa Ruushka iyo Shiinaha inaysan awoodooda veto-ga u isticmaalin qaraarkan. Ruushka iyo Shiinaha mar hore u sheegeen waxay yiraahdeen wax ka dhan ah Iran hadaa golaha ammaanka keentaan adikeedin taala. marka nimankii waxay leeyihiin waxaan nimankan u sheegaynaa Ruushka iyo Shiinuhuna inaysan hor istaagin qaraarkan. saysan u hor istaageen nimankan iyo ayagu waaba isla shaqaystaan. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray mashruuc qaraar cusub oo golaha ammaanka la geynayo kaasoo loogu magac daray la xisaabtanka Iran. haddaba Mareykanka ayaa mashruucan soo qaaday oo markaa qaraarkan golaha ammaanka keenay ee qaramada midoobay kaasoo Iran looga dalbanayo inay joojiso weerarada iyo sidoo kale ku beeridda miinooyinka marinbiyoodka Hormuz. dhanka kale waxaa loogu baaqay Shiinaha iyo Ruushka inay iyaguna aanay mar kale isticmaalin awoodooda qayaxan ee veto-ga iyagoo ku difaacaya wadanka Iran. haddaba dalalka qaraarkan ku heliya Mareykanka waxaa ka mid ah Bahrain, Saudi Arabia, Imaaraadka, Kuwait iyo Qatar. marka dawladihii khaliijka way ku jiraan marka laga reebo Cumaan 5 dawladood oo kale way ku jiraan. marka waxay leeyihiin waxaan anagu maaragtay qaraarkaasaan wadanaa nimankan Shiinaha iyana waxaan ka codsanaynaa inaysan veto isticmaalin. marka sheekadaas iyaduna hadda la soo wadaa qaraarkaas la soo karkarinayaa golaha ammaanka la keenayaa. marka hawshaas iyaduna way socotaa. dhanka kale ninkii Netanyahu ahaa waxa leeyahay wuxuu ka baqayaa dagaalka Iran inuu dhamaado isagoo ujeedooyinkii dagaalkan uu u galay aan la gaarin. haddaba ninkan ujeedooyinku uu u galay dagaalka maxay tahay? dadka marka wax falanqeynaya waxay leeyihiin ninkan dhowr ujeedo u galay. kow inuu Mareykan iyo Iran inta iska horgeeyo ay nagta iska saaraan uu Mareykan inta xanaaqo Iran dhulka la jaro Iran la baabi'iyo meesha ka baxdo si cabsida ay ka qabto Israa'iil Iran iyo awlaadeeda gobolka ay meesha uga baxdo ayadana gobolka ay noqoto awoodda ay ku faysteynayso meel kasta. tii marka ma dhicin. dagaalkii wuxuu u muuqdaa inuu sii joogsanayo iyadoo Iranna weli awood leedahay awlaadeeduna ay weli awood leeyihiin oo xilli kasta ay dagaalami karaan. taas marka cabsida ay Israa'iil qabto waay Netanyahu iyo kooxdiis. maxaan faa'iidnay marka jugtaasa nagu dhacday wixii la ka baabi'inay wixii la ka dilay wixii aan u adkeysanayn in nimanka meesha laga saaray. haddii hadda Mareykan saas ku cararo oo heshiis ku qaato haddii weli hawshii way taaganta nuclearka Iran oo weli meel la isla saarin wixii oo dhan oo sheekadii sidii u dhabaqsan laga tagaa. marka waa baqaynaa leeyin inay ujeedooyinkeeni aan ku guul daraysano. wala sheeko waa xumaad.
haddaba markaan idintuso wargeyska la yidhaha sharqul awsad wuxuu leeyahay talaabiib waxay baqdin ka qabtaa inuu dhammaado dagaalka iiraan iyo maraykanka iyadoo aan la gaarin ahdaaftii waaweyneyd ee dagaalkaas. marka israa'iil waxay iyadu ka baqaysaa heshiis kasta oo iiraan lala gelayo inuu markaasi ahaado mid markaasi oo xun inuu iyadu u yahay oo macnaha oo ujeedooyinkeedii ay meesha ku fashilmeen. waa sheeko marka meesha ka socota iyadana sheekadaasaa soo korortay. marka warkaasu halkaasuu marayaa. qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayno caawa oo wararka soo kordhaysana ka mid ah, sabtidii lasoo dhaafay waxaa la waayay 2 askari oo Maraykan ah. 2 askari waxaa lagu waayay meel la yiraahdo Morocco iyagoo ka qayb galaya dhoolatus loogu magac daray al-Asad al-Afriqi ama libaaxa Afrika. dhoolatuskaas waxaa iskala shaqeynayay Morocco iyo ciidanka Afrika u qaabilsan taliska Mareykanka Afrika u qaabilsan iyo wadamo dhowr oo Afrikaana iyo qaar saaxiiba ku wada jiray. 2 askari marka meel ay jaani cirib dhigeen waa la waayay. badda Atlantic ay ku dhaceen kan nag waa la waayay. hadda marka warara soo baxaya waxaa leeyahay nimankanu dhoolatus xataa kuma jirin oo xoogaa markuu dhoolatuskii u dhammaaday ayay badda dhinacyadeeda iyagoo iska lugaynaya ayaa mid ka mid ah waxa uu ka faniinay jabalkii badda wuxuu ku dhacay badda. kii kalaa dhar dhigtay saaxiibkii inuu soo bixiyo wuu iska daba tuuray. labadii sidii ku maqnaayeen mid saddexaad oo kor uga jeeda yimid labadii oo khatar ku jira isna waa dhar dhigtay soo bixiyo maagay. markii labadii uu waayay ayuu isagu dirqi ku soo badbaaday leeyahay. waxaa soo saaraysa wasaaradda gaashaandhigga taqriirkan. kii saddexaad marka wuu soo laabtay labadii kale badiyaa lagu laayay. badii marka waxaa loo kiciyey intaasoo markaba intaasoo doonyo ah intaas ayaa marka loo kicinaya. marka waxaan idin tusinayaa marka hore telefishinka Al Jazeera oo barnaamij ka diyaariyay askartan lala ayay. marka hore sawirkan wuxuu muujinayaa ciidanka Morocco calaamadooda iyo ciidanka Africom ee ciidamada Mareykanka Afrika u qaabilsan taliska. haddaba meesha askarta lagu waayay ee dhoolatusku uu ka dhacayay waa meesha la yiraahdo ra'su darca oo uu wariyuhu gacanta ku tilmaamayo sida arkaysaan. wuxuu leeyahay baddaas ayay halkaa kaga dhaceen. meesha dhoolatusku ka lagu qabanayna waxay ahayd ra'su darca meesha la yiraahdo. haddaba videoga markaan idin tuso warbixinta ku saabsan sheekadan videoga marka sida arkaysaan badii ay ku dhaceen ayaa halkan lagu soo bandhigay iyadoo ciidan fara badan oo Mareykan ay baaritaanka ka qayb qaadanayaan. diyaarado ayaa ka qayb qaadanaya. waxaa ka qayb qaadanaya doomo dheereeya. waxaa ka qayb qaadanaya drones. waxaa ka qayb qaadanaya kuwo quusa oo badda gunteeda quusa. waxaasoo dhan marka sabtiga ilaa khamiista maanta 6 maalmood laga joogaa. weli meel ay aadeen lama yaqaan. qaar waxay leeyihiin ama xayawaan cunay oo nimankii markay meesha ku dhaceen hal mar la laqayba oo raadkooda aan lahayn. maxaa ku dhacay? sheekadaasaa marka socota. haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa wararkii soo dhacay intaanu barnaamijka ku jirnay. haddaba wararka cusub ee soo dhacay waxaa ka mid ah Washington waxay sheegtay isbuuca soo socda taariikhdu markay tahay 14 iyo 15 wareegii labaad ee wareeg cusub oo wada hadal ah inuu dhex mari doono Israa'iil iyo Lubnaan. Mareykankana uu ka dhici doono. wareegan waxaa lagu waday madaxweynaha Lubnaan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil inay iyaguna is arki doonaan. laakiin madaxweynaha Lubnaan ayaa war soo saaray goor dhaweyd wuxuu leeyahay aniga Netanyahu ma arkayo sababtoo ah Netanyahu wuxuu rabo iska wada Lubnaan Beirut haddu qaynina ku heshiino waa yimid waa duqeeyay wuxuu rabo sameeynaya. marka inta uu tasciidkan wado oo dagaalkan iyo fawdadan wado wax aan la kulmay male. marka Mareykanku waxay leeyihiin wareegga cusub wada hadallada diyaarinayna 14 ilaa 15
toddobaadka soo socda bishan ayaanu qaban doonaa marka hadiiba marka madaxweynihii Lubnaan uu yiri anigu ma ka qayb galayo wada hadalkaas marka wax nafla oo meesha laga sugayo ma jiraan alle marka wararkaas waxay ahaayeen kuwa ugu waaweynaa ee caawa soo kordhay iyadoo warar kale oo xiiso leh ay ku jireen barnaamijkaygii labaad aan soo gudbinay maanta iyo kii koobaad labadaba dadka aan daawan iyaguna way daawan doonaan meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka